السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada dhammaantiin asxaabta iyo ardayda ku xidhan kaabe technology and language meel kasta dunida daafaheeda joogtaan goor kasta iyo xilli kasta meel kasta idin tahay waa mar kale iyo mid ka mid ah casharadeenii taxanaha ahaa ee ka bixi jiray channelkeenan kaabe technology and language إذا هانتين ملكستا كسوغنتين وان سلامنا وحن إذا كسلامنا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا دمانتين أصحابتا كسودو هذا موضوعنا مانتا ملكستا كسوغنتين وان إذا نحبلييننا وحن إذا لنا هاي سنة كيسا وحوين إلهي بشبشي برواقو هاي نبو قارسيو سنة كعصب وحوين كوبا آديات أيان idinku bogaadinaya insha Allah ina ka faa'iideysataan ilaahayna uu idin ka dhigo mid khayr qaba sidoo kale taladan idin soo jeedinaya waxa weeye sanadkan cusub ee sanadkii ina dhaafay hadii aanad waxba ka qabsanin insha Allah sanadkan inaad wax badan aad ka qabsato ayaan ilaahay kaaga baryayaa soo dhawow mar kale waa mid kamid ah casharadeenii taxanaha ahaa wax nagala socotaan kaabe technology and language Facebook page Kaabe Technology and Language, Instagram Kaabe Technology and Language, iyo YouTube channel Kaabe Technology and Language ee kusoo dhawaada ashkeena maanta. magacaygu waa Sharmaarka Carraale Jaamac Alaaba waxaan idin la socodsiyaa barashada luqadda Ingiriiska qaybaheeda kala duwan sidoo kale waxaan bixinaa koorsooyin waxa weeyaan online courses ah oo ku baxaya luqadda Ingiriiska waxaan bixinaa grammarkii oo dhameystiran oo syllabuska UK ku socda sidoo kale waxaan bixinaa waxa weeyaan buugagta ayo nooc buug kasta oo waxa weeyaan ama waxa weeyaan wax kasta oo lagu fududeynayo qofka barashada luqadda Ingiriiska inuu ugu fududaato marka soo dhawaada waan idin soo dhaweynaynaa ka soo qaybgal wanaagsan sidoo kale sanadkan cusub waxa haysataan 7 casho oo waxa weeyaan free ah cidii isdiiwaangelintu waa ku free waad ka soo qayb gali kartaa insha Allah waxa weeyaan koorsooyin cusub ayaan bilaabi doonaa sanadkan hadii Allah wada la ogolaado marka waan aad iyo aad baan u jeclaan lahaa inaad ka soo qayb gasho aad ka faa'iideysato soo dhawaada mar kale mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay nabadda ayuu ku saabsan yahay topic about peace mawduuc ku saabsan nabadda mawduucaas ayaan ka hadli doonaa nabaddu waa shay aad iyo aad u qaali ah xalqad iyo laba xalqadood toona laguma soo koobi karo yelkadeeda waxaan isdul taagi doonaa qaybo ka mid ah ayaan markaa wax weeyaan isdul taagi doonaa si fiicanna aan u akhrin doonaa haddii Allah wada la ogolaado nabaddu wax kasta waxay ku dhisan yihiin nabad haddii nabad la helo waxa weeyaan wax kasta waxa weeyaan waa la helayaa oo wax walba way ku hirgelayaan laakiin haddaanad nabad haysanin waxba kuma hirgelayaan oo waxba kuma socon doonaan marka nabaddu waa shay aad iyo aad u muhiim ah ilaahayna wuxuu ku sheegay quraankiisa in badan ayuu ku soo celceliyay nabad gurihiina ka dhiga oo waxa weeyaan nabadda ku dadaala ayaa ilaahay ku leeyahay quraankiisa wuxuu ilaahay ku leeyahay aayad quraana والله يدعوه إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تاسو معناه يهي غريهنا وحويان إلهي wuxuu idinku yeedhayaa يعني غريهنا inay nabad ka dhigtaan taasoo ay macnaheedu tahay يعني غريهina haday nabad noqdaan waa la idinku yeedhayaa daar salaam ayaa la idinku yeedhayaa oo ah jannada la idinku yeedhayaa waxa weeyaan janno ayaa ku heleysaan haddii aad ka dhigtaan gurihiina nabada ka dhigtaan marka aayadan quraanka ayaa inoogu filan sidoo kale iyadoo faahfaahsan waxaad ka soo daawan kartaa waxaad ka soo akhrisan kartaa ama ay ku taala suurada 10aad aayada 25aad ee suuratu Yunus واتي كرتا واد كسو اخرسن كرتا waxa weeye wallahu yad'uhu ila dar salam wa yahdi man yashaa ila sirat mustaqim sidoo kale aayada kalena way jiraan oo quraanka lagaga hadlay okay soo dhawaada mar kale asxaabta waan isla bilaabaynaa topic mawduuca bood ku saabsan peace nabadda in the name of Allah magaca ilaah baan ku bilaabayaa the most compassionate naxariista guud naxariista and the most merciful naxariista gaarka ah baan naxariista it makes me very happy farxad aad weyn ayay iiga dhigan tahay to talk in aan ka hadlo abood wax ku saabsan peace nabadda ku saabsan which also is very important aad iyo aad ugu muhiima in human life nolosha bini'aadanka society bulshada aad iyo aad ugu muhiima peace nabaddu is waxa weeye the most important part of life waa qayb kamid ah qaybaha ugu muhiimsan ee kamid ah nolosha iyadoo nabadda is waxa weeye the light of 15 light kaasoo helbi ka caawiya society bulshadu garow inay korto
oo ay garath ay samayso oo ay soo korto ka caawiya. Peace nabadu waxa weeye the most important part waa qayb aad iyo aad u muhiim ah of life oo ka mid ah nolosha. Iyadoo nabadaahi waxa weeye the light waa iftiin that iftiinkaasoo helps ka caawiya the society bulshada garow inay korto. Sidoo kale nabadda waxaa loo leeyahay nabaddu waxa weeye shelter waa hoyga for human life waxa weeye nolosha bini'aadanka. Sidoo kale waxaa la yiraahdaa nabaddu waxa weeye the absence waa maqnaanshaha of the war dagaalka. Markuu dagaalku meeshaas ka maqan yahay waxaa la leeyahay waxa weeye waa nabad weeye taasoo Allah ilaahay indhowr uu ku irsaaqo ama uu siiyo settle nation ummad iyo qaran degan uu siiyo. marka itiyadu waxa weeye the light waa iftiin helbi ka caawiya society bulshadu garow inay korto life together si wada jira u wada noolaato and be happy ayna wada faraxdo oo marka waxa weeye farxad ku wada noolaato. Every person qof kasta needs wuxuu u baahan yahay peace nabad ayuu u baahan yahay to live inuu ku noolaado and safe stable life markaana uu ku noolaado nolol degan oo waxa weeyaan ammaan ah safe ah stable oo degan inuu ku noolaado ayaa qof walba u baahan yahay. when marka there is age to peace nabadu people dadku can focus on waxay diiradda saari karaan development horumarka ayay diiradda saari karaan learning waxbarashada ayay waxa weeyaan diiradda saari karaan working shaqada oo in la shaqaysto ayaa diiradda la saaraya. sidoo kale making the future better mustaqbal wanaagsan in la sameeyo ayaa diiradda la saaraya. haddii aad nabad haysato waxbaad baranaysaa waxbaad dhalaysaa waxbaad dhisanaysaa yacni horumar ayaad samaynaysaa. laakiin haddaanad nabad haysanin waxa weeyaan intaa bedelkeeda midna kuuma hirgelayo. when marka there is age to peace nabadu people dadku can focus on waxay diiradda saaraan development horumarka iyo promotion waxa weeyaan dalacaada iyo gudubka learning waxbarashada working in la shaqaysto and making the future mustaqbal fiican oo wanaagsan in la sameeyo. without peace nabad la'aan life noloshu become waxay noqotaa difficulty mid adag ay noqonaysaa oo full of ay ka buuxaan problems dhibaatooyin caqabado iyo masiibooyin ay ka buuxaan. sidaa darteed peace nabadu waxa weeye very valuable aad iyo aad ay qiimo u leedahay aad iyo aad ay sharaf u leedahay. itiyadu doesn't just itiyadoo nabadaahi doesn't just mean kaliya to maaha macnaheedu there is no war dagaal ma jiro macnaheeda kaliya to maaha. it is also sidoo kale mean macnaheedu waxa weeye nabada there is waxa jirta justice cadaalad ayaa jirta oo waxa weeye waa la isku xaqsooraya. understanding waxa jira fahan ayaa jira in la isfahansan yahay oo la isfahmo dadku bulshadu si dhex gasho isfahanto. sidoo kale waxa jirta waxa weeye respect xushmad iyo waxa weeye ixtiraam ayaa waxa weeye ayaa jirta weeye marka ay nabad jirto. it also sidoo kale mean macnaheedu waxa weeye nabada there is waxa jirta justice cadaalad iyo sinaansho ayaa jira. understanding waxa jira isfahan respect xushmad ayaa jirta. peace nabadu helps waxay ka caawisaa people dadku listen inay is dhageystaan to each other midba uu midka kale u dhageysto oo la is dhageysto. working together in si wada jir ah loo shaqeeyo ayay waxa weeyaan ka caawisaa bulshada and unity isla markaana loo midoobo oo dheeg looga soo wada jeesto stability xasiloonida and iyo in order of the country kala dambeynta wadanka. si to bring loo keeno marka people dadka from different cultures leh dhaqamo kala duwan si ay meesha uga hirgalaan oo ka kala yimi with a different countries wadamo kala gedisan together oo si wada jira u imanaya oo isu dhexgelaya. peace nabadu start waxay ka bilaabataa in the heart qalbiga ama wadnaha of the individuals shakhsiyaadka ayay ka bilaabataa. and spirits waxayna ku faaftaa oo ay ku gudubtaa the families qoysaska ayay u gudubtaa communities bulshada ayay u gudubtaa. kabacdi markay intaana ka gudubto waxay u gudubtaa in the world adduunyada oo dhan ayay u gudubtaa. marka hore adiga naftaada waa inay ammaan noqoto qoyskaaguna uu ku xiga inuu ammaan noqdo bulshada iyo meesha la nooshayna ay ammaan noqoto. sidoo kale waxa weeyaan area kugu dhowna marka waxa weeyaan nabad ayay helaysaa iyo waxa weeyaan bashbash iyo barwaaqo ayay helaysaa. sidaa laajigeed nabadu waxa weeyaan aad iyo aad ay qaali u tahay. waa ku sii socodsiinaynaa marka la ku xusuusiyo waxaan bilaabi doonaa koorsooyin cusub oo ku saabsan luqadda Englishka qaybteeda waxa weeyaan advanced levelka normal levelka iyo sidoo kale qaybteeda waxa weeyaan beginner levelka iyo basic levelka shanta qayboodba waxa weeyaan 5 class ayaan bilaabi doonaa. haddii luqadaadu hooseyso oo aanadsan luqadaada waxa weeyaan aanaysan wanaagsanayn waxa weeyaan wad ka soo qayb gali kartaa. hadduu grammarku ku wada yahay wad ka soo qayb gali kartaa insha Allah. to achieve a peace nabad loo helo
isla markaana meel degan oo nabada loo helo weynaga masti waxay nagu waajibaa leen inaan barano forgiveness cafinta inaan barano inaan is cafino is saamaxno inaan barano patient dulqaadka inaan barano oo isu samiro isu dulqaadano aan kidna isla markaana aan isu naxariisano oo waxa weeyaan naxariista aan laga teginin dadku waa dad isdhalay waxa weeyaan waa la isku wada nool yahay marka these qualities sifooyinkani helbigaas waxay naga caawinayaan inaga resolve inaynu dib u xallino problems dhibaatooyinkeena oo ku xallino waxa weeyaan peacefully hab nabad buuxda aan ku xallino isla markaana aan building aan dhisno relationships xiriidho aan dhisno based on kuwaasoo xiriidhadaas oo ku salaysan trust waxa weeyaan kalsooni understanding iyo fahan ku salaysan also sidoo kale peace nabadu needs waxay u baahan tahay system maamul ayay u baahan tahay dawlad ayay u baahan tahay nabadu that dawladdaasoo ama maamulka ama nidaamkaasoo provide isagu bixiya ama gudbiya oo bulshada siiya fairness waxa loo yaqaano cadaaladda and equality iyo weliba sinaanta oo aanu kala eexan oo waxa weeyaan waxa weeyaan sinaana u siiya cadaaladda ayay nabadu u baahan tahay nabadu waxay u baahan tahay in cid looga dambeeyo oo cidi mas-uul ka noqoto marka peace nabadu needs waxay u baahan tahay systems waxa weeyaan nidaamyo dawlado ayay u baahan tahay that kuwaasoo provide iyagu bixinaya waxa loo yaqaano fairness waxa weeyaan cadaaladda sidoo kale bixinaya waxa weeyaan cadaaladda iyo sinaanta equality sinaanta ayay bixinayaan which kuwaasoo mee ka dhigaysa society bulshada more stable kuwa aad iyo aad u degan marka waxa weeyaan ka dhigaysa sida Allah ilaahay siisa uu ku leeyahay inta quraankiisa sida ilaahay ku leeyahay indeed dhabahantii laafis Allah ilaahay laafis uu jeclaanaya dawshu kuwa aagtay u dhaqma justly si cadaalada oo bulshada ugu shaqeeya ilaahay waxa weeyaan uu jeclaanaya waa ayad quraan weeye waa suuratul الحجرات سورة 49 آيات 9 أي كجتا إن الله يحب المقصدين أي آيات وي آيات indeed دبهانتي الله إلهي لا في سوء علانية those who كوا acti أما action يعني كدقما أو حويان فليا أو كدقما justly سعدالة أو دقما أو مدى وحويان وحق صورة وأن كلا دوي سنين إلهي وش علانية إن الله يحب المقصدين بكوا يضنا آيات وحكو سعطين si cadaalada ay maamulka iyo qaranka markaa meeshaas ka talinaya ay si nidaam leh ay u maamulaan umada iyo wax weeyaan bulshada meeshaas ku dhaqan iyo nabadooda this verse ayadani remains as inaga waxayna xusuusanaysaa that justice in cadaalada and equality iyo sinaantu ay yihiin the key furaha creating lagu abuurayo peace nabad lagu abuurayo and harmony iyo weliba wada noolaanshiyaha bulshada harmony wada noolaanshiyaha bulshada in the world adduunyada in conclusion gabagabadii peace nabadu is waxa weeye treasure waxa weeyaan waa hanti waxa weeyaan aad iyo aad u weyn oo qaaliya weeye treasure waxa weeyaan waa hanti aad iyo aad u qaaliya taasoo required looga baahan yahay everyone is taasoo u baahan taasoo requires u baahan everyone is effort qof kasta dadaalkiisa u baahan to keep it si iyada loo ilaaliyo leedaasi noo ogolaada all dhammaanteen work inaynu ka shaqeyno to spread inaan waxa weeyaan faafino oo aan gudbino peace nabada aan gudbino through inagoo u maraynaa our actions ficiladeena u maraynaa words hadalkeena u maraynaa and thoughts iyo weliba fikradaheena inagoo u maraynaa soo sidaa darteed inagu can live waxaan ku noolaanaynaa haddaynu sidaa samayno oo waxa weeyaan ka wada shaqeyno nabada oo afkeena waxaynu ka soo baxaya ka shaqeyno oo isaamaxno we can live waxaan ku noolaanaynaa in a country wadan weerkaas oo everyone qof kasta is a safe and happy uu ku badbaado isla markaana waxa weeyaan uu ku farxo may Allah ilaahay guide as inaga haynagu hago oo to be haynaga dhigo those who kuwa protect ilaaliya ka qayb qaata waxa weeyaan xil iska saara isla markaana aan promote waxa weeyaan ku fidiya oo ku promote galaya promotion ku gudbiya yani ku horumariya oo ku gudbiya peace nabad ku gudbiya and for the good of everyone cid kasta yani inay ku noolaato nabad inay ku noolaato oo yani ku fidiya nabad danta dadka oo dhan ku fidiya yani promote ku fidiya peace nabad for the good of everyone waxa weeyaan danta dadka
oo dhan si sinaan ah oo cadaalad ay ku jirto ugu fidiya insha Allah warjinayna inaad mawduuca wax badan ka fahanteen oo in badan ka barateen waxyaabo kala duwan insha Allah waxaan soo gudbin doonaa insha Allah casharo kale oo ka xiiso badan oo waxa weeyaan ku qanci doontaan sidoo kale hadii ay luqaddu kugu adag tahay akhrinteeda luqadda qorideeda luqadda macnaynteeda ku hadalkeeda waxa weeyaan iyo grammarkeedaba waxaan ku haynaa waxa weeyaan mawduucyo loogu talagalay oo dhameystiran iyo buugaag u qalma inay waxa weeyaan luqadda iskaga dhisto waliba sanadkan fursado badan ayaan bixinaynaa waxaan bixinaynaa free badan oo arday badan ayaa scholar aan siinaynaa insha Allah waxaan rabnaa inaan iska warhayno oo aan ka wada qayb qaadano inaan waxa weeyaan isdhisno oo aqoonteena kor soo qaadno oo mustaqbalkeena iyo ayaheena dambe aan ka tashano oo aan wax iska weydiino insha Allah intaan mawduuca hayga isugu iman doono magacaygu waa Sharmaarka Caraale Jaamac waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinka codsanayaa inaan mawduuca aan la igaraysaan asxaabtiina la wadaagtaan sidoo kale channel-kana aad subscribe ku samaysaan sidoo kale naga soo follow gareeya waxa weeyaan Facebook page iyo waxa weeyaan Instagram waxa ku qoran Kaabe Technology and Language aad iyo aad ayaan idin ugu faraxsanahay ku xidhnaanshihiina intaan mawduuca xiga isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu